mas-uuliyiinta shirkadda biyaha soo saartay ee nugaal inki ayaa hadhimo sharafeed heerkeedu sarreeyo ku maamustay wasiirka khayraadka biyaha ee somalilan salebaan cali koore. munaasabadan hadhimo sharafeedka ayaa maanta lagu qabtay hotel rays oo ku yaala magaalada laascaanood, waxaana kasoo qayb galay ganacsato, odayaal dhaqameedo, siyaasiyiin iyo xubno kale. waxaana halkaasi lagaga hadlay biyogelin ay magaalada laascaanood ku samayn doonto shirkadda nugaal inki, taasoo wada biyogelin ay magaalada ka hirgelinayso. gudoomiyaha shirkadda nugaal inki cabdirasaaq cismaan oogle ayaa ugu horeyn halkaasi ka hadlay.